xaflad ballaaran oo xilka loogu kala wareejinayay gudoomiyihii hore ee gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Awdal Cabdi Axmed Haayir ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama. xafladan xil wareejinta oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Somaliland Cusmaan Garaad Soofe iyo howlwadeennada laamaha maamulka dawladda ee heer degmo iyo gobol ee gobolka Awdal madaxda dhaqanka qaybooga kala duwan iyo madax kale oo ka tirsan maamulka Somaliland iyo marti sharaf kale oo fara badan. gudoomiyaha degmada Boorama Suleymaan Xasan Xadi ayaa isagoo hadallo sabootin ah oo isugu jiray ammaan iyo mahadnaq ku ammaanay gudoomiyaha hore ee xilka wareejinaya Axmed Xadi Sidci. sidoo kale wuxuu hadallo soo dhaweynaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Awdal ee xilka la wareegayay Cabdi Axmed Haayir. wuxuu nin howlkar ah runtii waxaa nin samir badan waxyaabo badan oo anagu halkiisa haddii aan joogo go'aan degdeg aan ka qaadan lahaa ninka dejin jiray buu ahaa farasaabku ee odhan jira dugaaga aynu u berino horta bahasho waxaanu leenahay farasaabka Cabdi Axmed gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu filaynaa in wada shaqaynteenu ay noqon doonto mid aanan maskaxdaada ka bixin oo aad dib u xasuusato xilka soo qabato iyo meel ku saarto. gudoomiyaha hore xilka wareejinaya Axmed Xadi Sidci ayaa isagoo ka warramay waxqabadkiisii muddadii uu xilka hayay ee gobolka Awdal wuxuuna ka codsaday shacabka reer Awdal inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub oo isagoo hore u ahaan jiray gudoomiyihii gobolka Togdheer. waxa weeyaan maamulka xilku waa meerto uu maamulkiisa uu beeloobay iskuna dayay inay maaragtay ay ka hadlaan in isbedel lagu sameeyo. waxaan idinku soo dhaweynayaa maanta in madaxii gobolka Cabdi Axmed Haayir madaxweyne waxaan kugu guwaabinaynaa inaan hal maalin loo dayn qofkii shaqadii qaranka ka soo bixi waayay. gudoomiyaha cusub ee la wareegayay xilka gudoomiyenimada gobolka Awdal Cabdi Axmed Haayir ayaa isaguna u mahadceshay gudoomiyaha xilka uu kala wareegayay iyo bulshada ku soo dhaweysay gobolka Awdal ee ka soo qayb gashay xafladda xil wareejinta. gudoomiyaha cusub wuxuu ballan qaaday inuu waxqabad samayn doono muddada uu xilka ka hayo gobolka Awdal waxaana ka mid ah hadalladiisii. waxaan mas'uuliyiinta gobolka madax dhaqameed aqoonyahan iyo bulshada reer Awdalba dhammaan ka codsanaya inay isku kay garab taagaan inaan ku hogaamiyo horumar nabad iyo wanaag aniguna daacadnimo ku dheehan aan lahayn kala qaybin laakiin isku duubnaan midayn Awdala aan ku hogaamiyo ayaa bulshadana ka codsanaya inay isku kay garab taagaan. waxaan idiin ballan qaadayaa inaan dhegaysto oo albaabadoodu ay u furan yihiin cid kasta oo bulshada Awdal ka mid. waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan waxba aanan kala hakran ama aanan awoodayda waxba ka haystiin sidii aan u horumarin lahaa gobolka Awdal una dhaafin lahaa gobollada kale. Amaal Xaaji Miisaan oo ah la taliyaha haweenka ee madaxweynaha Somaliland ayaa iyadoo goobtaasi ka hadashay waxaana ka mid ah hadalladeedii. waxaan horta ka qirayaa Sidci waa nin aad iyo aad qaali u ah laakiin waxaan aad uga xumahay inuu bedelku u dhacaa iyo xilka oo la isku wareejiyaa u dhacaa inuu yidhaahdo kaftankii ahayd reer Awdal oo ragga wax doontay abibay rag wax dooran jireen midna waa helaa midna waa waxba taasi male maanta haddii lagu soo bedelay Mr. Haayir waa ilaahay mahadin. ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cusmaan Garaad Soofe ayaa isagoo xafladdaasi hadallo kooban ka jeediyay wuxuuna dardaaray gudoomiyaha cusub isla markaasina wuxuu ammaanay gudoomiyaha xilka wareejinaya Axmed Xadi Sidci oo uu sheegay in muddadii uu joogay gobolka Awdal uu si fiican ula shaqaynayay wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland. fariisaabkii hore Axmed muddo badan baan soo wada shaqaynaynay waxaan ku ammaanayaa kartida iyo daacadnimada iyo waxqabadka uu muujiyey. fariisaabka cusub isagana waxaan la hawl qaran baa ku taala aqoonteedu uu leeyahay aqoon qaran ha noqoto ama mid gobol baa noqoto. waxaa xilka halkaa u kala wareegay waanu ku ducaynaynaa gudoomiyaha gobolkana meel khayr la mariyo wuxuu kala tegayaa gobolka gudoomiyaha cusub ilaa hawshiisa fuleeyo aynu dhammaanteen faatixada uga marro. si kastaba ahaatee xafladan lagula kala wareegayay xilka gudoomiyenimada gobolka Awdal ayaa iyadoo ahayd mid ka duwaneed xafladihii hore ee lagula kala wareegi jiray xilka gudoomiyenimada gobolka maxaa yeelay muddo sanado badan ah waxaa xilka la kala wareegi jiray mas'uuliyiin ka soo jeeda gobolka Awdal
balse cabdi axmed haayir wuxuu noqonayaa gudoomiyihii u horreeyey aan ka soo jeedin gobolka awdal ee muddo dhowr iyo 10 sannadood ah loo soo magacaabo gobolka awdal. Haashim Shaan Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.